wallaahi intaanaan anigu fanka gelin waxaan ahaa ardayad baan ahaa waxaan ciyaari jiray baasketka orodada gobolada ayaan u ordi jirtay gobolka waqooyi galbeed baan u ordi jiray dhowr jeer baan xamar nala geeyaa anagoo isboortigaasa marka iskuulka iyo isboortigaas ayuunbaan ka shaqayn jiray markii hore markii dambena anigoo ardayada unbaan fankana kusoo biiray berigaasi ma islahayd fanka ayaad ku biiraysaa oo waxaad noqonaysaa fanaanad caan ah oo weliba dee idaacada waaweyn iyo dadkoo dhan ay wada garanayaan maya wallaahi ismaan lahayn waayo dee horta idaacadahan waaweyn iyo waxaa b b cna waan dhegeysan jirnay radio hargeysana waan dhegeysan jirnay laakiin de adduunkan kale iyo dadka populationkan iyo waxaasiyo baagaa waa laiska yaryaraayo waxaa maan islahayn sida aad halkan imanka heerkaa u gaadhay baad u gaadhi waa tahay ma xasuutaa markaasaad fanka kusoo gashay waxaan kusoo galay iskuulkaygaan ka bilaabay fanka heestii u horreysay macalinkayga carabida ii dhigi jiray baa ii dhiibay hees wadaniyay ahayd waan xasuustaa hawiya dadweynow baa la oran jiray markii ku xigeyna sidii iskuullada riwaayadahoodii wixii baan dhigdhigi jirnay markaas saasumaan ku bilaabay waa tahay si gaara maxaad ka xasuusataa maalmihii fanka aad gashay ee dariiqadii aad u martay iskuulka ma waxaa lagu dhigi jiray qayb ka mida fanka de macalinka waxaa noo dhigi jiray carabida ilaahay ha u naxariistay wuu dhintay marka waad iska garanaysaa iskuullada xiisad waxaa jiri jirtay muusikada iyo la oran jiray xiisad muusikada abaa jirtay iskuullada marka taas unbaa ardaydu heesaysaa marka heestaasaas ayaa qofka de codkiisa iyo waxaa lagu kala garan jiray annaguna arday iska heesaysun baan ahayn saas awgeed unbuu macalinkaasina iigu dhiibay heesta dabeedna radio hargeysaaba laga duubo waxay noqotay heeste caanoo soo baxday markaa waa tahay intaasi kadib horta hees inaad soo saarto oo shaqo intee la-eg ayaa kaa geli jirtay wallaahi anigu markaas de heesaha shaqo gooniya umaan qaban jirin anigoo iskuulka dhigtaa shaqadana lay qoray markaa fanaaniin waaweyn baa joogtay hargeysa oo waa beri ahaa fanaaniintaas ayuun baan u iman jiray markaasaa heesahana halkaa qaar laygu xafidsiin jiray marka anigu iyo dadkaa waaweyn baan la bilaabay oo dee gacan qaban jiro gartayna mala yidhi gabadhan way heesi kartaa gaar ahaan macalinkayga saalax qaasim ee u horreeyey ii tuma iyo fanaaniintii kale dee markaa joogtay oo dhiirin gelin jirtay marka sidaasunbay si yarunbay saa u bilaabatay riwaayadii baabay igu xigay ilaa habaka qabani waa tahay hal hees baan rabaa inaan ku yarnasono intaanan qaybaha kale u gelin heeskii mahiigaan jacayl khadra daahir cigaay sanad cusub ayaa la galay bal imise sannadood ayaad horta fanka kusoo jirtay horta sanadka cusub ilaahay ha nooga dhigo mid bashbashii barwaaqo lagala kulmo ilaahay ummadda soomaaliyeed nasri khayr qaba siiyo ilaahay awlaadeenna inoo barakeeyo ilaahay dalkeenna ina aaminsiiyo ilaahay ha nooga dhigo anigu waxaan soo bilaabay fanka 74 baan bilaabay ilaa dee iyo imaka 2002 baa iigu dambeysay waan kusoo jiray marka khadray maadaama 2002 ay fanka kuugu dambeysay ma waxaad leedahay fankii waa ka baxay oo waa iska dhaafa maama anigu fankii waan ka hadhay sababtoo ah anigu horta qof weyn baan noqday midda kale caruurtaydii baa caruur sii dhashay dee awlaadii baa maaragtay iminka iska weynaatay aniguna qof weyn baa noqday ta kale waxba markii hore de diinta maanaan ka garanayna diintiina waanu la qabsanay marka wallaahi waxaan go-aan ku gaadhay inaan faraha ka qaado intii horena ilaahay iga cafiyo saasaan markaa fanka kaga hadha waa tahay dadkana dhegaysanaya marka laga yimaado fankii maanta maxaa dadweynaheena sheekooyinkii caadiga ahaa ee aad xasuusatidoo weliba adigu markaad soo xasuustay aad ku qososhid aad noola wadaagaysaa kolley khadraa sheeka kaama madhin sheekooyinkii igu qosolka badnaa waxay ahayd beri ilaahay ha u naxariistay cumar buule cali aanu wada soconnay oo cumarna nin aada iyo aada qaali u ahaaba ahaa ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye ayaa anigoo baabuur wata oon isagana isla soconnaa waxaanu tagnay shabeelle halkii la oran jiray baanu tagnay dabadeedna marshabiyeediga ayaan ku dhoweeyey gaadhiga nin xoog weyn baa taagnaa ninkaa xoogga weyn markuu arkayna marshabiyadiiyo ninkii ku dhow ayuu ninkii igu qaybiyo nagadu gaadhiga intuusa bakooradu haystay kor ugu qaado markaasaa ninkuu yidhi cumarna waxaan ku ogaa dadka iska gaabsada ee dee nabadda jecel markaasaan ku war maxaad noogu qaylinaysaa miyaad ogeyn rag nala socdo caynkaa cumar baaba intaa markuu maqlay ilaahay ha u naxariiso daaqadii faka siiyey xagganuu ka soo wareegay
ninkuna wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dheer haye cumar baa halkaa xuduntiisa ugu dhacay ninkiina madaxu saa gacanta kaga qabtay marka waxaan islahaa dagaal buu samayn doonaa waxaan maqlay isagoo leh arrinaadan xishooda de waa habliheenii waxba maartay oo arrintii maslaxa ka dhigay wuu cabsaday ninkiiba sasabaya oo cabsaday oo sasabaya waa cumar dhuule allah u naxariiste cumar dhuule ilaahay u naxariiste waata sheeko xasuus kugule bay ahayd oo qosol badan aad iyo aad waan xasuustaa mar walba wallaahi haye ninkii markaa uu iska tegey sow kan maslaxay odaygu wuuna gartay de wuuna gartayoo dabeedna arba raalliska ahaada buu nagu yidhi I think ninku reer waqooyi buu habaan malanaya koradisa markaasaan ku rooriya cumar maxaad ninka maxaad u baryaysaa caynkaabsuu yidhi intuu leegyahay miyaad arkayn wallaahi aniyo adiga buyna mar dhaxadee markaasaan ku yidhi ninkana raalli ahaadinu ku yidhi annaguna qosolkii baabna halkii kaga soo dhaqaaqnay waatay qurbahaad muddo ku noolayd khadray bal ka waran qurbihii iyo noloshoodii sidee isku fahanteen maadaamaad soomaaliya ka tagtay wallaahi way adkayd nolol xunoo adag bay ahayd maxba kamaanaan aqoon qurbaha dee dadka qurbay tagaan baan maqli jirnay laakiin nolol xun oo aan habeen u dhigmin waddankaaga ama aad ku gaajootid ama aad ku dheragtid ayaan ka soo marnay muddo 25 sano baan joogay caruur baan ku haystay caruur baan ku dhalay xataa wallaahi nolol aad u adag bay ahayd oo aan kolliba inaga xaggeena maaragtay aan ciyaar ku ahayn laakiin dantaa dadka baday keliya laga faa'iiday dee ilmihii ilaahay hagaajinaya ee waxbarasho sameeya mooyaane anigu shaqana kama gelin in marmar xafladaha iyo aroosyada iyo riwaadaha aan taga mooyaane laakiin shaqada caadiga dadku qabanayaan maan qaban jirin ta gurigaan qaban jiray hooyaan guriga ka noqday anaa wax guriga u hagaajin jiray cuntada u karin jiray halkii la iga shaqayn jiray anaa u shaqayn jiray marka nolol iska rafaad ayay ahayd markaad halkaas tagtid waxaa lagaaga baahanya inaad luqadii ku hadashid bal ka waran luqadii adiga sidee maxaad isla marteen wallaahi luqadda iyo anigu waxaanu isla marnay weli waxaan ahaa anigu dadkii iskuullada af ingiriisda loogu dhigay hase ahaatee dee markaad halkaasoo kala tagto af ingiriisdeedii wax agaalo waxay anfacaysaa ma jirto maalin baa nin dukaan haysto oo hindiya iyo bakistaani maqaa wuxuu haaya ayaanu wax ka qaadan jirnay marka sonkorta iyo burka iyo waxaasu iibin jiray dabeedna ninkii baan u tegey maalintii dambe awal inta badan odaygayga la socon jiray laakiin maalintaa keligii baa u tegey marka waxaan raadinayaa laxooxda bahalkii lagu dari jiray bikibowdher baan raadinaya marka ninkiiba waxaan ku yidhi wuxuu igu yidhi maxaad eegeegaysaa masaan ku yidhi I'm looking Bicking Power soo nin ciyaartooya jarmala waaba nin ciyaartooya nimankiiba adna dukaankaa ka dhex raadinaysa ana dukaankaaba ka dhex raadinaya nimankiiba isku sheegtay Bicking Power he's a player baan maqlayaa markaa dabeedna anigoo isnabayaan ka soo baxay dukaanka waan fahmay inaan khaldanahay dee waxayba leeyihin waa nin ciyaartooya Bicking Power ana Bicking Powder baan raadinaya dabadeedna xaafadii baan ku soo noqday waxaan ku yidhi inaan joogay baan ku yidhi warheedhe wixii laxooxda lagu dari jiray muxuu ahaa markaasuu yidhi Bicking Powder dee waan ku yidhi markaasuu i raacay markaasaanu dukaankii tagnay markaasuu ninkii yidhi miyaad haynin Bicking Powder markaasuu yidhi namay weydin Bicking Powder waxayna weydiisay Bicking Power dee qosol macaa nimankii macaa annagii dib dambese ma keligii baan dukaan u tegin markii dambe carruurtaa waad ku baranaysaa af ingiriiska oo waad baranaysaayo waad la qabsanaysaa moogta waata waxbadan la yaable waan kasoo argay hadda qurbihii waa kasoo guurtay muddooyinkan hargeysaad ku nooled imanka hargeysaan ku noolahay waan tagaa sanadkiiba hal mar baan carruurta soo eegaa laakiin inta badan hargeysaan deganaha